halkani waa daqiiqadaha wararka taariikhdu waa 16 January sanadka 2024 Afrikada barina saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan caawa idin hayo waxa kamid ah shirkii qamiista loo ballansanaa ee wadamada igad inay Kampala isugu yimaadaan oo hadda la sheegayo inay Ethiopia ka baaqsanayso oo aysan diyaar u ahayn inay halkaasi timaado khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia wili cirka ayuu isku sii shareeraya dawladda Soomaaliya waxay bilowday inay la kulanto odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka gobolka Awdal ka soo jeeda ee magaalada Muqdisho jooga in mowqif adag laga qaato waxa ka soo kordhay gobolka Awdal dadweynaha reer Awdalna waxay haydaan meel ka soo joogan waxa loo sheegaya ama lagu amraya inay dareen qaataan hawshaana maxay haydaan dhibaatada ku soo kordhana ay ka hortagaan odayaal iyagana gudaha gobolka Awdal jooga oo ah kuwa duqay ah oo waliba cirreystay ayaa ka hadlay khilaafkan ka dhashay heshiiskii sharci darrada lagu tilmaamay ee Addis Ababa ka dhacay dhibaatada gobolka yaga daddiisa loo bixiyay raali kama dhigin baan leenahay ma ogolin baan leenahay qarxii Muqdisho ka dhacay oo dhimashiya dhaawacba keenay aadan keenan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya kana mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee ugu culus dalka Kenya oo sharci darro iyo in xuduudaha Soomaaliya lagu xadgudbay ku tilmaamay heshiiskii Addis Ababa ka dhacay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland iyaguna su'aalo ay iska weydiinayaan heshiiskaasi adduunka dhan uu ka qaylinayo nin sheegay inuu yahay afayeenka reer guuraaga oo afka furtay caafimaadka xoolaha ayuu ka dayrinaya fariin ayuuna u diray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xoolaha dhan ma waxay wada qabaan kordur mid caafimaad jira cudurkiisa in la baaro weeye reer guuraagu ma diidine waxa weeyaan sun la soo gelinayo baa jidha aan ku bilaabay qoraal ay dawladda Ethiopia u dirtay urur goboleedka igad ayay ku sheegtay inaysan iman karin ayna ka baaqsatay shirka qamiista inuu ka dhaco ay ahayd magaalada Kampala ee hoggaanka wadamada igad ay ku ballansanaayeen qoraalkan oo saxaafaddu ay heshay ayay Ethiopia ugu sheegtay wadamada igad inuu waqtiga ku yar yahay howlo kalena ay leedahay sidaas darteedna aysan suurtagal ahayn inay shirkaasi timaado igad kama aysan jawaabin warkan isaga ah lamana oga in Ethiopia maqnaanshaheeda uu keeni doono in shirkaasi wadamada igad uu baaqdo oo qamiista soo socoto uusan dhicin shirka ajandihiisu wuxuu ahaa xasarada Ethiopia iyo Soomaaliya iyo dhibaatada ka taagan Suudaan in looga hadlo Soomaaliya diblomaasiyadii ayay dhisaysaa xulafo ayayna raadinaysaa iyadoo aad uga carootay shacab iyo mas'uuliyiinba heshiiskii sharci darrada lagu tilmaamay ee Addis Ababa ka dhacay dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka ayaa bilowday inay dhaqdhaqaaq ka samayso magaalada Muqdisho maanta waxay la kulantay waa wasaaradda arrimaha gudaha odayaal salaadiin iyo waxgarad gobolka Awdal ka socda oo qadiyada gobolka Awdal looga hadlay waa kuwan odayaashii shirkaasi ka qayb galay oo ka waramay wixii ay wasaaradda ka wada hadleen in mowqif adag laga qaato waxa ka soo kordhay gobolka Awdal dadweynaha reer Awdalna waxay haydaan meel ka soo joogan waxa loo sheegaya ama lagu amraya inay dareen qaataan hawshaana maxay haydaan dhibaatada ku soo kordhana ay ka hortagaan labada bilood waxay ka tashanayaan oo ay aad uga tashadeen arrimaha ku soo kordhay gobolkoodii Awdal waxaana islaaf kartay wax badan oo muhiim ah iyo sidii dareenka ummadda Soomaaliyeed isku agtaagi lahaa shirkan wuxuu ku soo gabagaboobay afgarad iyo in la difaaco gobolka dadka gobolka waxa la farayaa in ay kacaan oo ay difaacdaan sharaftooda diintooda dalkooda badooda iyo ciidooda in difaacdaan annagoo ah beelweynta Ciise iyo beelweynta Gadabuursi waxa weey kana soo horjeedna inaan dalkayaga xoreysano waxaanan ma garanaysaa mowqif lanahay shacabka gobolada ka soo jeeda Somaliland haday Hargeysa joogan haday Burco joogan haday Boorama joogan haday Xariira joogan haday Boon joogan haday Lugayo joogan waxaan leenahay in la dareen baan nahay dhinaca kale gobolka Awdal falcelin xoog leh ayaa ka socota duqay cirradu ay taabatay ayaa fariintan ka soo diraya deegaano gobolka Awdal ku yaala dhibaatada gobolka yaga daddiisa loo bixiyay raali kama dhigin baan leenahay ma ogolin baan leenahay intay naga harayso inay yaroo dhabarka lagu soo oo Soomaaliya naga harayo ma ogolin taasaan leenahay inta kadib waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland musabbix waxaan leeyahay oo halkan uga sheegaynaa raggu waa saddex dalkiisa cune dibiyadiisa cune iyo dadkiisa cune la kala yidhaa ninka dadkiisa cunaha waa la xiraa jeel baa cibrigiisa lagu gaarsiiyaa ninka dalkiisa cunaa
xakamadda adduunkaaba la geeya waa badul ninka dunyadiisa cunana waa la daajaa muusoo dalkiisa cunaha noqon ma kala xamash ma kala ninhan isku diin iyo isku dal baahanoo dul dhigo ma kala dalkayga hooyo inuu dad shisheeyihii ka taliyo ma ogolin ninkii taa doonayo ma ogol maaja berriba sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaa iyaguna wax iska weydiinaya heshiiskii Addis Ababa oo hadda noqday hadal haynta ugu weyn ee Soomaali meeshay joogtaba ay falanqaynayso intii heshiiskan waa heshiiskan ugu cusub oo hordhaca marka hore annaguna waxaanay golaha sharci dejinta ee ummadda ay soo dooratay go'aankeeduna ilaahay ka suko annagu noo yaala oo noo imanaya adigoo aad u mahadsan ma jeclayn aan ka hor dhaco waxaan codsanay sida hore ogtahay in nala hor keeno marka nala hor keena ayaanu baadhinaa eegina akhriyna wixii markaa ummadda iyo dalka iyo dadkaba u dana ama aan u danahayn markaasanu sheegina insha Allah go'aan Soomaalidu dal iyo dibadba way ka hadlayaan aadan keenan waa xildhibaanka ugu cimriga dheer xagga mudaxileedka dalka Kenya waraysi uu bixiyay ayuu ku sheegay in heshiiska Ethiopia iyo Somaliland ay galeen uusan ahayn sharci darro oo kaliya ee uu yahay mid horseedaya dhibaatooyin iyo fitma ka abuurata wadamada gobolka isla markaana wuxuu ku tilmaamay mid lagu xadgudbay xuduud dhuleedka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya aadan keenan iyo rag kaleba horay ayay qadiyadan oga hadleen balse warkan cusub ee lagu daabacay wargeys ku yaala Kenya ayaa waraysiga aadan keenan si adag wuxuu carabka ugu adkeeyay midnimada masiirka iyo xuduud dhuleedka Jamhuuriyadda Soomaaliya inuu yahay lama taabtaan wahagaag daqiiqadii wararka ayaa duli naga daawanaysaan qarax muqdisho maanta ka dhacay ayaa dhimashiya dhaawacba keenay qaraxa waxa isku soo xiray qof nafti halaga ah booliska ayaa arkay balse markii dambe way suurta gali weyday in la joojiyo wuuna isqarxiyay halka qaraxu uu ka dhacay waa Xamarweyne saacada uu dhacayna waxay ahayd xilli zaxmad ah oo shaqadana laga soo baxay qada iyo salaadna la isu diyaarinayay muqdisho ayaamahan waa nabad dadkuna waxay ka faaloonayeen in laga raystay qaraxyadii baawurta iyo kuwii dadka isku xiri jireenba wahagaag halka wali aad nagala socotaan waa barnaamijkeennii daqiiqadaha wararka nin sheegay inuu yahay afayeenka reer guuraaga ayaa ka warramay dhibaatada xoolo dhaqatada haysata gaar ahaan caafimaadka xoolaha ninkan fariin buu dirayaa wuxuuna la hadlay Saciid Cabdullaahi Deni oo mar kale Puntland loo doortay annagu waxyaalaha aan tabanayno waxay ahayd hadday tahay xag deegaan hadday tahay xag caafimaad hadday tahay xag waxbarasho xukuumaddaada kama aanan helin madaxweyne waadna u gudbinaysaan hadalkaas madaxweyne waxaa dhacday hor baa dhulkii loo xaalufiyey wax la jarto iyo wax agaf lagu gooyo iyo wax iska noqdeen la xaalufiyo wadankii ugaadhi wixii ku noolaay oo dhan digada laga dhigay wax ka hadlayana ma jirin taas waxaa ka sii xumayd dhirtii in la jaranayo la gadanayo oo dibadaha loo iibgeynayo wasaaraddaas ma jidhaan leeyahay wasaaradda xanaanada xoolaha tiiman bay soo saadhaa tiimanka ay soo saadho 10 qof oo isbitaal la keenay qofba dhiig baa meel looga qaadaaye hal irbada lama wada dhaco xoolaha dhan ma waxay wada qabaan kordur mid caafimaad jira cudurkiisa in la baaro weeye reer guuraagu ma diidine waxa weeyaan sun la soo gelinayo baa jidha ayaduna wasaaradaasu xanaanada xoolaha waxay ka qabataa haba yaraatee ma jidho waxay u keentana dhibaatay u keentaa xoolaha uma keento wax la yiraahdo baaritaan ilo cudurku in la baaro u baahan yahay daqiiqadihii wararka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin daawashadiina tabintan tooska ah waxaa farsameeyey maxamed elfis barnaamij soo saaraheenna caawa waa cabdifataax cabdulle aniguna catoosh baan ahay tan iyo kulan dambe nabadgelyo faa'iidooyinka adeega ibesa sendi money dirista lacagaha withdraw money qabixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka ibesa bay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka ibesa global xawilaadaha ibesa mastercard ijwa mastercard
banking service adeegyada bangiga e-pesa goor kasta iyo goob kasta macmi weli hore ma u maqashay application-ka Banana Pay haddii aadan hore u maqal Banana Pay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid waxaana inoo keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 30 sano ka shaqeynayay nidaamka xawilaadda lacagaha haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa Banana Pay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan Soomaaliya iyo Kenya waxaad lacagta ku diri kartaa adeegyada mobilka gacanta sida Sad Sahal EFC Plus iyo M-Pesa Kenya waxaa sidoo kale ku diri kartaa adeega T+ bangiga Sombank iyo xawaalada Tawakkal Express haddaba ka faa'iideyso Banana Pay oo ku sameysay qiimo dhibis balaadan oo ah 20% waxaana lagu adeegayaa qiimo jaban ilaahay baa caafimaadka bixiye hamogaanin isbitaalka Healthgate Hospital dhakhtarkii caruurta kii cudurrada guud dhalmada iyo ka warqabka hooyada dhimirka iyo maskaxda dhakhtarka lafaha caafimaadka indhaha intuba waa ku diyaar weliba caruurta markay dhashaan dhalooyinka lagu koriyo ayuu isbitaalka Healthgate ku caanbaxay isbitaalada wadankan ka jiraan waxa ugu sareeya level 6 oo ah levelka 6 Healthgate waa levelka 5 qalliinada degdega ah iyagana waxa uu diyaaraa dhakhaatiir 24 saac heegana shaybaarka baaritaanada cudurrada waa casri oo waxa yaala qalab la hubo nadaafaduna waa inoo muhiim oo haddaad bukaan ahaan u jiifato iyo haddaad saacado kooban joogtaba Healthgate waa deegaan nadaafadda u saaxiiba Healthgate waa xarun caafimaad xaasha lilaahi waa xaqiiq oo soo booqo isku daawee oo isku baar ilaahayna kala saaro isbitaalkan Healthgate qalliinka hadda maxaan suubinaa oo latest oo laser lithotripsy la marka qalliinkaas maxaa waaye qofka isagoo jirkiisa meelna laga jeexin ayaa dhagaxaanta laga soo saaraa hamoogaan Healthgate Hospital oo ku yaala jidka weyn ee xaafadda Islii laga galo soo horjeedka Islii North Police Station isgoyska ama roundabout-ka Muratina Road